saaka hadana dagaal bay soo qaaday oramadii tuuladii biyo kulay ku soo qaaday dagaal way qabsatay tuuladii way qabsatay way ka sii baxday xagga waliba degmada caasimadda Siyaade iyadoo wax yar uga dhiman yahay shacab badan oo soo abaabulay iyo waxba ka hor yimid dib baa loo soo celiyay oramadii macal tuuladii qabsatay dib looga laba qabsaday ma baabili sida u dhanayd intii Oromiya lagu wareejiyay ya Soomaalida magacii baa loo soo reebay magacii baa leeyahay marka meel la taga magaalo kale oo Dandama la dhaho oo baabili ahayn oo intaas oo kiiloomitir u jirta ya magacii la tagay oo laga dhigay degmo baabili baa laga dhigay baabili baa la tagay waa Dandama hoosta markaad xoqdo markaad xafiiska joogtana waa baabili shaambad hadii mustaqbal ugu goynayo degmada baabili ee dawladda deegaanka Soomaalida gobolka Faafan baa lagu dhuftay degmadii baabilina Oroma haysata xafiiskiina waa baabili dhulkiina waa Dandame martiba marka ku tahay degmadii marka fadlan kor waxay ku jirtaa kor baa loo hayaa dhulka wali lama dhigin mushaharkeedii baa la qaataa baa lagu qaataa marka cirka lagu qaataa kor baa loo hayaa boorta lagu soo qaadaya Dandame ahaan baa loo qaataa mise Dandame waa tuulo tuuladii Dandame tuulay ahayd awalba degmadii baabili Soomaalida ma laga qaatay lama oran in loo kala gooyo xaafadna Soomaalida hal la siiyo xaafadna Oromada baabili oo dhan waa la dhaafiyay Soomaalida ma la soo dhaafiyay magacii baa la qaat magacii bay haystaanoo tiibay kolba meel tagaan hadda Dandame ku hayaan magacii السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدأ وضيال كسر هذا برنامج كحق ورن قضب كوحانو كودي رد كسر النام أنا كفلان قيد دونا دجالة ده حياة سومالدي ورمضة ومالين بمالين تقدم بيسس صوت ريا تاسوي ورمضة يدل ما يكون سقالة سديجان كسومالدي غيبك كم ده وحدود ودجموين كحدود كلا قبل ك أمحارة قبل كان هذا ورمضة أي دوان انسحيين بورنا بري أي لهاين طبعا قطبقي أيال الشيء يا سيدو كلا إن إسحاق ورراي كسو قادن تولد بيو كورلا أيال لي هي واي قبصدان مركز دمر يجا أيال لقى قبصدي سيدو كلا دد ميدة يرد عوعية لمشاية شرب على لي هي برنامج أنت أيان دور إن أنا كفلا قينا أنت نكوجد الشرع عبد الرحمن أيا قرب كيف فدي عبد الرحمن وبرسوله وتقال هذا ساكر داعي محين خلاص بسم الله الرحمن الرحيم وحكلا سعنا إن Oromada iyo Soomaalida dagaalkoodu waa socday dhawaanaanba dadku toddobaad wuxuu ka socday qolaji oo aagaas in aad jab ballaaran lagu gaarsiiyay Oromada farqiga dagaalkaas iyo dagaaladii hore u dhaxeeyay ama dagaalada deegaanada kale u dhaxeeyay dhaxmarayeen wuxuu ahaa dadka deegaanka oo aan dagaalka كسرنا قيب كأحين عيدمو لاج هو ميلا فوق لكنه نيو بوليس أورما هيدولا كسوق قادين سبب تمرك جاب كذا إني فضي سي أما جاب كذا سود الدجسي القياس يانا الرما هذا سببه أنت كسكو واجب تي كل كقولتش اللي قسم يلاقوا حي دان كان يجرسم وحبا كان داعي حد يروان لنا قلنا أورما ذا وحكوا حجي أو يدنا صدق كلا الدجال وقبل لو يدرعت oo nin judhi ah habeennimadii lagu dilay nawaaxiga Beki degmada Beki ninkii markii la dilay shalaynimo dagaal baa dhacay oo maxaan ku raadin dadkii meesha deganay Soomaalida ah ee shacabka ah xogaa intay suursadeen bay dagaal qaadeen hadana khasaare kala dhashay dhanka Soomaalida nin la dilo cusub iyo 3 dhaawac saaka hadana dagaal bay soo qaaday Oromadii tuuladii biyo kulay ku soo qaaday dagaal way qabsatay tuuladii way qabsatay way ka sii baxday xagga waliba degmada caasimadda Siyaade iyadoo wax yar uga dhiman yahay shacab badan oo soo abaabulay iyo waxba ka hor yimid dib baa loo soo celiyay Oromadii macal tuuladii qabsatay dib looga laba qabsaday deegaanka adigu nawaaxiga biyo kulule ya hadda aad xabadu iyo dagaalku uga socdaa waxa hadda la sheegayaa in isla maanta la keenay dad meeyda ilaa laba Soomaali ah meesha la keenay dagaalkan ya Oromada la sidoo kale dagaalka ku dhinteen oo dagaalka ku dhinteen dagaalka waxaad moodaa inuu kii hore ka khasaaray yar yahay ba hadda uu soconayay iyo dadka dhimanaya kii xagga qolaji oo waxaad isdhihi kartaa shacabku Soomaalidu waa shacab waxa dagaalamaya dhanka kalena waxa laga yaabaa inay shacab yihiin laakiin waxay sheegayaan dadka qaar in ciidamadii deegaanka Oromada New Police ay la dagaalamayaan laakiin waxaan aaminsanahay haddii ciidamada New Police deegaankaas Oromada ay la dagaalamayaan in khasaaruhu inta ka badan lahaa sidana ay ahayn waxaan u malaynayaa saan qiyaas iyo xogaha marka raadinay dadka wareysanay yani natiijada noo soo baxday in labadii shacab ee labada deegaan ee aaga deganaawn ay yihiin oo ay istagaalayaan
oromo marka biyo kulana saaka oo qabsatay waa laga laba qabsaday waana laga sii saaray dagaal marka hadda duurka la isku la jiro oo dhowr taanin meedka ah hadda la keenay uun Soomaalida laga ogaaday khasaare badan laakiin dhimashiyo dhaawac balana gaarsiiyay ama ay ka dhalatay yaa hadda ka socda deegaanka biyo kulule way marka dagaalkan oromada soo qaaday taa Soomaa oromada soo qaaday way oromada markay soo qaaday kii bay yani xad dheer baan leenahay xadka aan leenahayna dhulka xadka aynu ku leenahay oo dhan waa dhul dad Soomaaliya ay lahaayeen oo Soomaalida laga wareejiyay hadda wali waxa jira minus baan ku wada jirnaa ama xaggan afarta ha noqoto ama xaggan ha noqoto ay sheegeen oromada meel kasta oo aynu xad kala leenahay Itoobiyadaa kore minus baan ku jirnaa ta oromadu ha u badnaatee dhul badan oo Soomaalida laga qaatay tusaale ahaan mina waxay ahaan jirtay waa degmo qubi ku dhagan Soomaalida lahaan jirtay hadda mina waa degmo Oromiya Baabili Soomaali baa lahaan jirtay Baabili hadda waa degmo Oromiya Oromiya wada marka Baabili bas laba qaybood ma kala tahay ma Baabili sidee u dhanayd intii Oromiya lagu wareejiyay ya Soomaalida magacii baa loo soo reebay magacii baa leeyahay marka meel la taga magaalo kale oo Dandama la dhaho oo Baabili ahayn oo intaas oo kiiloomitir u jirta ya magacii la tagay oo laga dhigay degmo Baabili baa laga dhigay Baabili baa la tagay waa Dandama hoosta markaad xoqdo markaad xafiiska joogtana waa Baabili shaambad hadii mustaqbal ugu goynayo degmada Baabili ee dawladda deegaanka Soomaalida gobolka Faafan baa lagu dhuftay degmadii Baabilina Oromo haysata xafiiskiina waa Baabili dhulkiina waa Dandame martiba marka ku tahay degmadii marka fadlan kor waxay ku jirtaa kor baa loo hayaa dhulka wali lama dhigin mushaharkeedii baa la qaataa maxaa lagu qaataa marka cirka lagu qaataa kor baa loo hayaa boorta lagu soo qaadaya Dandama ahaan baa loo qaataa mise Dandama waa tuulo Dandama tuulo yahay awalba degmadii Baabili Soomaalida ma laga qaatay lama oran ha loo kala gooyo xaafadna Soomaalida hal la siiyo xaafadna Oromada Baabili oo dhan waa la dhaafiyay Soomaalida ma la soo dhaafiyay magacii baa la qaat magacii bay haystaano tiibay kolba meel tagaan hadda Dandama ku hayaan magacii meesha Dandama inay magaalada iska Dandama oo hadii degmo laga dhigay hadii gobol laga dhigay hadii wax laga dhigay goonido taagan baa shaambada dhax socota iyo mustaqbalka laga gooyina Baabili baa ku qoran Baabili waa wadata waa degmada Baabili hadda qolaji waa tuulo ka tirsan degmada Baabili degmada Baabili Oromadii ma aadayso degmada Baabili oo kor loo hayo laba Baabili degmada Baabili oo ku taallay mid cirka ku taalla way Soomaalida cirka ku taalla degmada Baabili cirka ku taalla hoos tagtaa marka ma tuuladiina cirka loo hoosgeey hadaa cirka loo hoosgeey way dhulkeedii Oromo qaadatay magaciina way wataan wali Soomaalidii magacii meel la tagaa marka garan laayeen kor baa loo hayaa dhulkiina waa la marka waxaan leeyahay kor ha u haynine intaad qaadataan soo dejiye qorraxda meesheedu ma ka soo bixi Baabili geeye oo calankiisi geeye oo birtu ka sudnaa geeye oo gobol ka dhigta oo gobol deegaanka Soomaalida oo Baabili oo wixiisa oo Faafan daris la ah ka dhigta laakiin inay hadda taabisa ma degmadii kale Gursum wala soo raray Sooma kor baa loo hayaa iyadan xagee la geeyay meel halkan dhaxay ku jirtaa shabeelay ka shaqeysa Gursumtii xakaas ay buuraha ka taa wala garanay wala laga soo raray meel soo kala keenay marka oo laamida dhaxdeeda oo magaalada marka Oromada qaatay iyadana marka kor baa loo hayaa dhulkeena oo dhan maadaama kor loo hayo meel xad ahana aan la garanaynin hada waxa la yiri Baabilida markii la qaatay Soomaalida xariga keelaaga fiiq u leexda weeyaan xadku Faafan iyo way soo furnaayeen oo jigjigi iyo fiiq way soo furnaayeen haddana qoloji waa la isku haystaa jigjiga fiiq way kala xidhay magaaladii degmadii kor loo hayay Baabili ahayd iyo tuulooyinkeedii qoloji ah way kala xidhay isma furra qoladii TPLF marka waxay samaysay nidaam murug ah oo aan laga baxayn waligeed TPLF marka samaysay qorshahan TPLF ba samayso Soomaalida dhul ma laga qaatay xad ba loo sameyn maayo halka iyo halka hatta hadaan ka samri lahayn oo laga ba samro xariiqinta ha dhaafin Oromo iyo xariiqintaana Oromo ha dhaafin xariiqintaana Soomaaliya ha dhaafin lama oranin waxa la yiraahdaa Baabili Oromaale waayay ilaa halkay leedahay meelaa jigjigay leedahay Baabili halkay hoos tagta Baabili bas ay leedahay mise deegaanada Baabili hoos timaado dhan bay yeelan dagaalada bal hadaynu dib ugu laabano qolo jibin la socda dagaalka ka dhacay khasaarihiisii imikana waxaan la soconaa Gotabiki iyo meesha saaka ilaa wala soo wareer dawladda federaalku ma ka hadasho horta arrintan
isku dhaca labada deegaan dowladda federaalku kama hadlin dowladda federaalki meel bay ku wada xariisnayd dagaaladana way wada soo arkaysay waa la is arkay hoosta laga kala amriyay shimalisna hoosta uu ciidamadiisii gala ka lahaa kan kalena ciidamadiisii uu hoosta gala ka lahaa isku qudinayeen iyagoo halkana bariiska ka wada cunayo korka wada fadhiya ragun baa go'ayay Oromo baa u badnaatay waa lagu kala adkaaday dagaalka kanna waa la is ogyahay ciidamada federaalkina meesha way joogaan kuwan markii shacabka qulaji leeynay federaalku meesha fadhiyeen kuwan kale ee hadda gota biki inta la qabsanayay saaka biyo kulul federaalku saan buu fiirsanay korkoom ka joogay biyo kulul la qabsaday federaalkii oo dhowraya Soomaalida waa laga qabsaday oo intii rag laga laayay Oromo qabsatay federaalkii oo dhowraya Soomaalida waxa dhowraya marka ma kala soo dalka iyagu ma xukumaan hal xisbi kama jiro ciidan military soo lama laha ciidamada federaalkii waxay sameeyaan hadii Soomaalida laga yar adkaanayana dooshay ka qoslaana way ku daayaan haday Soomaalidu calsaaraha yar heshana waan in kala celinayna ciidamada federaalku ma ogola in qoomiyad u talowda bay dhahayaan dhaxda istaagayaan laakiin hadii Soomaalida la yar calsaaraha laga haysto halkaas ka daan waxaan ku baranay city cadeetu iyo andhoofiya dadkii lagu gorgowracay fartiga Soomaalida saasay u dhowrayeen markay Soomaalidu yar ritay intay rogota ay dib u yar eridana waxay sameynayeen way ka boodayeen waxay oranayeen waa kala qabanayna qoomiyadaha hadda markii maxaan ku dhahay qolaji intii kalaagi laga kiciyay nimankii Oromada ahaa baabili la dhaafinay baabilidiba ay qilqiilka gashay ciidamada federaalku ay soo istaagaan xarigii qolaji bay istaageen militariga baan hayeen calankii federaalka gaariga sanka ka sureen harra ka sureen bartanka ay fadhisteen kolkay Oromadu intay soo dhuumato buurta federaalku fadhiyo ay intay kor istaagto ay saneefarka caruurta ku shiishay ku leynaysana wuu gaaraa federaalka saneefarkiisu qash ku siin maayo warkada oran maayo uu ku dhowraya marka way isbaratay tani si fiican bay isu fahantay lamana kala cabsanayo hadda waa la isfahmo federaalka laftiisa biyaha aan la siinayna hadii isoo Oromada iyo deegaanka Soomaalidu ma ka hadleen labada dhinac dagaalkan socda Oromadu way ka hadashay waxay tiri Soomaalidu bana soo weerartay kana nagu dhacay kii kala nagu dhacay way iyadoo si adag buu hadashay laakiin deegaanka Soomaalidu kama una hadlin marka laga reebo ninkan ciidamada xukuumee kafayde dagaalka gal yiri galad dagaalka oo dadban ah yuu yiri anagu waxba daansan mayno daansan ninkii wax daansan uu guul dareystaa laakiin cidina soo magmaagta waan iska celinayna Oromadu ula jeed hanjabaadaasi waxay timid kadib markuu ka guuleystay qoladii Oromada ahayd ee baabili ee uu ka guuleystay baa timid baabili qolaji tan wali maynan dagaalkeedu bilaabanin oo ciidamada deegaanada gaarka ah wali maynan bilaabanin goota biki laakiin shacabkii tabardaridooda ka garanaysaa sida isu leynayaan oo de dhul baa la kala qabsan laba dhimatay xaqana loo kala boodi maanta dhan baa la dagaalamay saddex baa dhimatay dagaalku dagaal hadda wali dagaal caruureed weey dagaalkii baabili iyo qolaji markii hal mar la istaabto 30 Oromo dhimanaysa 50 Oromo dhimanaysa 200 way ka badantay Oromada ku dhimatay dhowrtii bariyo dagaalkan qolaji socday 25 ka badan oo shacab iyana xabad ku dhaawacday inta korkii ciidanka laga yimaado shacab caadi aad baad u mahadsan tahay Cabdiraxmaan ayuu ahaa barnaamijkii la gurfeynayay qodobkan waan ku eegaynay dagaalada Oromada iyo Soomaalida u dhaxeeyo maanta la sheegayo ilaa shalay inay ka socdaan degmada Gotabeki oo gaar ahaan saaka ayaa la sheegay inay tuulada biyo kulul ay soo weerareen halka waxa la leeyahay dhowr qof baa ku dhimatay dagaalkaas oo dhinaca Soomaalida oo la keenay degmada Gotabeki barnaamijka xog waran ayaa daawanaysan inta barnaamijka xiga ku kulmi doona iyo waxyaabaha soo cusbanaadaan inta ayaan jeclahay inaan ku soo afmeero sida ay nabadgeliyo